السنهاج سنهاجداas waxa weeye waa qabiilkiisa weeyaan nisbada uu sheeganayo ee loo nisbeeyay sanhaaji qabiiladaas waa qabiilo oo kamida qowmiyada amaziiqiyada marka kitaabkiisu wuxuu asaas u yahay qof kasta oo doonaya fannigan la yiraahdo naxwada albaabkeeda inuu gala doonaya waa kitaabka asaaska u ahaa ee qof walba oo isku dayahaya inuu albaab ka furo meesha uu ka bilaabayo weeyaan natiijada hadii la yiraahdo fannigan kada naxwada la yiraahdo natiijadiisu hadii meel walba la tago oo la maro kitaabaha mutawalaadka iyo mutawassidaadka iyo kuwa mukhtasaraadka intaba hadii la isu geeyo waxay isugu imanun natiijadiisu waxay isugu imanaysaa intan ajruumiyada ku taalo bay isugu imanaysaa inta aan bala si bas iyo waxyaal lagu ziyaad lagu sii daray mid walba uu sii sharaxay nin zaahid ah oo wuxuu ahaa taqwada ilaahay inuu ku sifoobay lagu tilmaamo ikhlaas badan uu ka muuqday kitaabkiisa aqbalka uu ka helay ummadda islaamkana waxa weeye way ku tusinaysaa ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل الإمام الشافعي موه يا يري ما كان لله دام واتصل وحي إلهي درتي الله سمعيه إخلاص وكجره ودائما ولقي مقعه وصعدا وما كان لغيره انقطع وانفصل وحي إلهي درتي عن الله سمعينين أو غرض كلا أو الدنيا يوحكى الأصاق لنا صدق وقعه ودبر قعه ما سيواره marka sheekhu wuxuu dhashay qarnigii 7 ee hijriga 672 markay ahayd 672 hijradu markay ahayd ayuu dhashay 723 wuu dhintay 51 sano meelahaas aan qiyaasay inuu cimrigiisa markaa uu ku qiyaasan yahay 51 sano qarniga 7 إلى يومنا هذا عد كسته اسكو ديسا إنay fanniga naxwada ay ka faa'iideysato asaaska koobaad waxa weeye uu albaabka uu ka galahay waxa weeye waa kitaabkiisa weeyaan fanniga naxwaha la yiraahdo ahamiyada uu leeyahay salafkii waxay yiraahdeen maan wax yar ka sheegaynaa أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رواية اللي سو غوريي تعلموا النحو كما تعلمون السنن والفرائض هذا الكائن يري نحو ذا برتا سيداد أبرايسان عرورتين يددكين أد أبرايسان سننتي يا فرائض وحياله فرل كوها قفك يوحي السنها سيدي أد أبرايسان سيدا سوكال أبر waxaa kamida oraahdiisa kamida waa isla Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rahimallahu ra'an aslaha min lisani ilaahi ha u naxariisto qofka carabkiisa wanaajiya oo laxni ka ilaaliyo waxa kaaga ilaalinaya carabka naxw laxniga ka ilaalinaya naxwadii baa kaaga ilaalinaysa bayhaqi wuxuu soo guuriyay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu inuu soo maray qoom oo rimaaya sameynaya toog dhisad leeb macnaha ku toog dhisanaya si khaldanna u sameynaya markaas wuxuu yiri bi'sa ma ramaytu waxaad ganaysaan baa baas lahaaday wax xun baad sameeynaysan qaab xun bay u adeegsanayeen markaas waxay yiraahdeen inna qawmun muta'allimiin annagu waxaan nahay معناه برشان أقدر لنا هي قوم أو برنا هي أيانا هي إنا قوم متعلمين مركزا وحير والله لذنبكم في لحنكم أشد علي من ذنبكم في رميكم ذنبك أتكو جليسان لحنك أتكو هالليسان يا أنا جلوين بقول أكتر إذا leebkan kada aad khaladka aad ka galeyseen dambiga aad ku galeyseen kaasa bay gala weyn buu inna qawmun waxa weeye waa marfuuc sooma
اسمigaasi wuu rafcisan yahay mutacallimuununa sifay u tahay isagay raacaysa rafcada inuu ku raacaya waa jamcun mudakkarun saalimun waan gaari doonaa baabkiisaan ugu tagaynaa in sha Allah haddii la rafcinayo wow baa lagu rafcini haddii la nasbin ama la jarahayana ya baa lagu nasbin oo lagu jarahaya marka maxay ahayd inay yiraahdaan inna qawmun mutacallimuun markaas waxay yiraahdaan inna qawmun mutacallimiin taasoo aad uga xumaaday oo kululaaday الإمام الشعبي وحيري النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه نحو ذا علم قد أحدث علوم تأردن مرك الله فيريو نحو ذا هيرك أي كجوكت علمك وحيلمتها هاي سيدا ملح ذو أي انتظى أي جوكت انت هذا واحد دنان أردن هدان لتابسين عنتان كذا سيدابك ونغن ردن ملح ما دhammayso marka sidaas oo kale ayay culumtu u tahay buuri naxwadu النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه عبد الملك ابن قريب الأسمعي اسمه وحيري إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحيالها نقفك علمك طلبها يا أن أوقع بصبضنها وحاكمده يري حدي أوصن علمك نحوها أوصن قرنين أوصن برنين إنه صاقله حديث كان قفك نبي قفك يقول بين أبورت إسقى أولا كعو السمين هيا meeshuu naarta ka fadhiisan lahaa ha u diyaar garow haddii uusan qofkii isagoon naxwadii aan waxba ka garanaynin hadduu ku dhiirado markaa dee xadiidkii nabiga khalad soo isaga ilaaliya way adagta marka macnaha wuu ku dhiiraday waa wuxuu awooday intuusan naxwadii intuusan gelin xadiidkii intuusan gelin aaladii makanin lahayd naxw inuu ka ilaaliyo khada inuu ka ilaaliyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam inuu barto marka wuu ku dhiiraday way marka waxyaalahan oogu cabsi badnahay inuu hadalkaas soo guda galo waxyaalahan daalibul cilmiga oogu cabsi badnahay way ka mid tahay Abdullah ibn al-Mubarak taabicigii zaahidka ahaa ee muhaddithka ahaa ee mufassirka ahaa wuxuu yiri isaguna اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه هذا الكأول اللحنيه وحو كحمان بدن يهي علاماتك وحنونك الجدري قال لي هذا ووجهك قفك وكغرب وحنون حن أو مركو قفك وكدعه ديعان إيو وحو قلنها يا وجهي إيو قعماها إيو أيو كغدحها markuu intuu dheecaanka iyo wixii intay ka soo raysto xuubkii iyo waxba ka dhacaya nabara xun baa muuqaal ah ka muuqanaya qofka wajigiisa oo inay dadku arkaan uu ka rahayo oo san jecelaysanayn marka hadalka oo la laxniyay waxay ka xun tahay buu yiri inuu xanuunkaasi wajigaaga calaamada ka muujiyo ayaa ka xun buu yiri Isxaaq ibn Khalaf al-Bahrani wuxuu yiri isaguna النحو يصلح من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحني فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن النحو يصلح من لسان الألكني لكن هذا وادمد أنت قفك عرب لاوها عرب كججبين markuu laxni ku hadlayo sida qof carab laawo oo kale oo hadalkii uu dhibahayo oo hadalka jajabinaya amal uu la mid noqon haya markuu hadalkii uu laxminayo qof carab dadka uu carab la yahay hebel aan idhaahno oo kale sidaas oo kale la mid yahay laknada uu yeelanaya wal mar'u tukrimuhu idha lam yalhani naxwadu way karaamayn ama adigu waad karaamayn midka doonaba ka dhig hadaa taada ul khitaab ka dhigto tukrimuhu adigu waad karaamayn ama tukrimuhu iyada karaamaynaysa qofka oo waxay ku karaamaynaysaa inuu laxni ku hadlay ka ilaalinaysa
فإذا طلبت من العلوم أجلها علومتي مدك ugu weynan badan culumta oo dhan oo la isku soo ururiyay midka ugu weynan badan hadii aad dalabto fa ajalluha minha midka ugu weynan badani muqimul alsuni lisaanyaalka kuwa toosiyo way culumta cilmiga ugu weyn muxuu noqon hayaa waa midka carabkaaga toosiya oo gafta oo dhan ka ilaaliyo al-imam as-suyuti mufasirki isaguna muxuu yiri weynaa من فاته علم النحو فاته المعظم نحو قفك علمك نحو قفك كتو علومتي معظم كيدي وكتب marka culimadu waxay yiraahdeen jihadii la arko mantiqadii la arko ina laga helo qof yaqaana waa fardu kifaaya qofkii isagoo akhrin haya oo tafsiirkii akhrin haya ama xadiidkii nabiga akhrin hayana waa fardu cayn bay yiraahdeen marka ahamiyadeedu naxwadu qofku markii intuu fahmo ila cilmu al-aala la yiraahdaa aaladii la isticmaalahay aaladana waxa weeyaan waa mid wax lagu goosto haddaad shay samaynayso oo markii la dhisayo masjidkan kada tuulkii lagu dhisahay hadaan loo haynin ma cid ma wax ka qaban karta ma jiro dhisi karta hilibka markii aad gogoosanayso hadaan mid u haysanin gacmahaaga ma ku kala gogoyn kartaa hilibka wad ku rafaadaysaa hadaan culuum al-arabiya waxba ka garanaynin markii aad baranayso saas oo kale la mid tahay wad ku rafaadaysaa laakiin markuu carabkaaga tooso oo kelimo walba meeshii aad dhawaaqeeda sidaad ugu dhawaaqi lahayd aad meel ku ogaato تفسيرك هذا شيخي كده جيسته أما حديثك أد كده جيسته مرور الكلام هل مر إن مرتم والبهان من أباهنت إن أدوح الشيخ ويري أراهذي معنا أهان إيو معناها حكم كأد كفى إذا سنة سون علم أهان ما هنا كلمة ذا وحكو فسري معناه هي إن ترى هذا محير الصدق أول أواقع سدابة هيد ما أباهنت هذا قاو حويه كتصرفها هي استقلالية هذه يا لناس سدابة مركع علمي من كذا أد كفهمي كرتاه علمي wuxuu ka duwan yahay culumta kale culum shariica hadii aad mesela tafsiirkii baranayso ama xadiidkii baranayso ama fiqhigii baranayso siiradii baranayso taariikhdii hal habeen hadaa timaado halka habeen 10 wad ka faa'iideysan habeen kale hadaad goysado habeen kale timaado 10kii Allah soo kulantay waa ka faa'iideysan laakiin kan wuu ka duwan yahay cilmi dhagood wax la yiraahdo ka qaadi maysid waa silsilada isku xiran وإننا كاكلا قوي وإن فهم كيس وحكو حرنيا وإنه سنكاكلا قوي 10 وقتنا وإن تجلسا marka ugu horeyso qofka waxa laga yaabaa inuu is yiraahdo sida lagu fahmo way adag tahay ama waqti dheer bay u baahan tahay ama time-kan hadda waqtigan kale ma bahaysid shaqooyin baad ka shaqaysaa waqtigaagu wuu yar yahay fikradaas hadduu iska dhaadhiciyo waxa laga yaabaa sidoo isagu iska dhaadhiciyo bay noqon laakiin hadduu ku tala galo walow hal mar maxay oran jireen Soomaalidu subax iyo sadar subax baa badan bay yiraahdaan subax iyo sadar hadii hal sadar haddaad maalintiiba hal sadar hadii lagu siiyo wixii aad waday ee darsaysay isagu ma dhamaan subaxdu waagigu soo baryoon mar walba subaxdun baa dambayn oo ka badan marka wuxuu u baahan yahay adkaysi iyo ku talagal iyo dadaal aad ku dhiibto wixii taariif u baahan in la xadido oo dabti ah sida hadda kalaamka oo kale uu ka bilaabanayo ma huwa al-kalaamu markii la yiraahdo i'raabka oo kale ma huwa al-i'raab ma huwa al-fi'l al-mudari' ma huwa al-ism lawaabidaas sida ay tahay haddaad siday tahay aad u xafido إعرابك مركي لقارو بدنا قفك فهمك يا قرعك وحوجي ماذا مركي معناها أنتي اللي جدبو إعرابك الله جد قلو مركي إعرابك الله آخره وإعرابك مركاسو فهمك ويو بدنيه قفك إنه كرر 10 نحو ذا قرعك هذا الإعراب بعد المعنى بالليلة كلمة ذا مركي لما معناه إعرابك هذا مركاسو واضح نقول هيا ومقال كيس ظاهر نقول هيا جماعة وأنه ما أنا نسأرق استدي كله جوجين
waxaan ku akhrin jiray conference qolalkan la soo galo qol bay samaysteen marka ajruumiyadan aan ka bilownay sabti iyo axad labadaa waqti baan geli jiray ilaahay wuuna makaniyey inuuna naga kala go inaan wadno ajruumiga camriidiga kawaakibka qadrinada waballisada kadibna sarfiga macallin maxamed la yidhaahdo boston buu degan yahay magaalada boston buu degan yahay ka mid ahaa wuxuu yidhi maalintii u horreysay markaan soo fadhiistay waxaan idhi buu yidhi wakhtiguyuuna kaa dhuminay shaqooyinkaaga iska aad waxaan lagu hadlahayo inaad fahamta suuragal ma noqonayso haddana waxaan sidhi buu yidhi war wax walba badane bal iska sabir iska sug waan dhammaynay ajruumigii haddana icraabkii baan dhammaynay icraabkii wuxuu yidhi markii aan maraynay kaana iyo nawaasikh libtidaa nawaasikh lmubtada'i walkhabari kaana iyo akhawaadkeedaa la yidhaahdaa waa bartamaha adu markaan waxoogaa yar aan xagga u dhaafno habeenkaasaa wuxuu yidhi aan dareemuu yidhi iftiin inuu ii baxay oo qarcigii wax iga dhacay kadib si fiican buu dhidibada u aastay ugu talagalay hadda qadrinada waballisada waan malay kitaabkaaba inuu wadaan malaynaya hadda isaga akhriya waxaa weeyaan wax adag ma jiro ku talagal iyo juhdi iyo ku talagal unbuu u baahan yahay iyo dadaal qofku inuu geliyo aad buu u dadaali jiray dadaal badan buu dhiibi jiray marka habeenkaa laga bilaabo intii ka dambaysay wuxuu yidhi cashrigu istaagaba maana arag marka dhallinyarta waa inay ku talagalaan gaar ahaan raggan xufaadda ah waa ragga oo waxaa weeyaan sharafka iyo wanaagga ilaahay uu siiyey inay inta ka dhiman ay ku dhammaystiraan oo lisaankooda ay toosiyaan culuumul carabiya naxwo iyo sarfi waxay yidhaahdaan madax iyo minjay yidhaahdaan minjaha waxaa laga yaabaa meelaha qaar soomaalidu madax iyo luga haddaad doonta dhe may kala maarmahayaan madax iyo lugahaagii midna gooni miyuu u noolan karaa waa maya labadooda saasay isu yihiin bay yidhaahdaan maxaa yeelay midba kelimadii carabiga ahayd intay ka koobnayd midba qayb buu xallinayaa labadooda markay isu tagaan waxa weeye kelimadii carabiga ahayd way kuu dhammaystiranta marka ragga oo culuumtantada carabiga raggan a'immada u aha ee markay hadda aan dhex gallo hebel saasuu qabaa hebel saasuu qabaa hebel saasuu qabaa aan odhanayno waa a'immadii oo waxaa weeyaan qur'aanka weeyaan sabcada kisaa'i abu camar ibn alcalaa madrasatu lbasra madrasadii oo maaragtay ugu xoog badnayd madrasatu lbasra imaamkeedu abubakar ibn alcalaa weeyaan waxaan leeyahay abu camar ibn alcalaa marka cilmigan aad ku jirtaan eed barateen qur'aanka kalaamullaahi almunazal waxaa weeye cilmigii idiin ilaalinhaya inaad laxni ka ilaalisaan oo haddana sunnada inaad si fudud iyadana aad markaa aad uu ilaahay uu ugu talagalay nabigiisa uu yidhi litubayina linnaasi inaad sunnadiina markaa tafsiirkeedii inaad iyadana ku darsataan cilmiga idin makaninhaya weeyaan inaad ku dadaashaan weeyaan tacriifkiisi bismi illaahi araxmaani araxiim الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام كلامك هو اللفظ النطق باللسان بالي هذا اللفظ كل واقوي عربك عدك دواق ضوء هذا المركب oo la istarkiibiyey min kalimatayni fa akthar almufiidu faa'iidaynhaya lisaamici qofka wax maqlahaya uu faa'iidaynhaya wax bilwadci qasadna wax ku faa'iidaynhaya bilwadci laba macnaa labadaba lagu fasiraa bilwadci qasad haddii lagu fasiro qasad wax ku faa'iidaynhaya waa inuu u qasto qofka hadalka uu ka hadlayo waxaa baxaya hadalkii aan loo qastin ciday hadalkuu ka soo fulay baa yaa baxaya sida qofkii halmaansanaa iyo qofkii waallaa iyo qofkii hurda ee riyoonhayay iyo hadalkoodii haddii qasad lagu fasiro
هذا الكود كلام من نقنهاي ولو جملة ما يسترن بها كو هذا ما أنت ودنا كلام لما ودناي هذه وضع قصة لغو فسر بالوضع عربي هذه لغو فسرنا وحابحها يوحي اللغة هي كله أردن أو عن عربي هين ولو كلام لما يسترن بها هذه أو وحول بها فائدة لفظها هذا أو مركبها هذا أو مفيدها هذا مرة دون عربي هين عند النحويين كلام لغو مقعاب مهي الكلام هذا الكي كلام وإنا كافت لقربه الكلام هذه اللي يراهدو كلام وحال اللي يراهدا الأرض الصعبة أرض أذك يا كلام كان اللي يراهدا قولك أذك وهذا تمعضينات قدرتان كيس وأذكيه وإنه الكلام هذه اللي يراهدا وكافت اللهوس طبعا الجراحات والنبر هذا ويان قفك به كلام فلان وحاكو السغن جراحوين باكو السغن بالله أوران هيا marka inagu kaan dan leenahay waxa weeye kaafta in la korrabo way al kalaam in la yiraahdo kalaamka loo jeegaa muxuu yahay waa kalaam nahwiyin kalaamkii fuqahada uma jeedno kalaamkii oo maartay usuuliyiinta uma jeedno kalaamkii luqawiyiinta uma jeedno kuwaas oo dhan mid walba taariifkiisu wax gooni ah loo yaqaana xagga luqada hadii la yiraahdo kullu ma afaada xagga luqada wax kasta oo wax faa'iideeyay kalaam baa la yiraahdaa wuxuu dooni baa ahaado marka inagu kaan u dan leenahay hadda taariifkan oo uga dan leenahay meeshan aan ku labtinayno waa cinda nahwiyiina waxay kalaam u yaqaanaan afar labdi bay u sheegeen afar labdi waa ina afar laga helo al-lafdhu horta waa inuu yahay lafdi macnaheedu waa maxay an-nutqu bil-lisaan waa carabka ina laga hadlo oo wixii wax lagu dhawaaqay u yahay haddii uu shaygii qofkii hadal baa jira waxana qofkii uu xubnihiisa uu ka hadli karo waxyaalo fara badan oo wax ku faa'iideyn hayaa jira laakiin dhawaaq uusan ka soo baxayn ishaaradii oo kale waxa weeye waa wax hadal wax ku fahansiinaya laakiin nutqi ma jiro kalaam la oran maayo haddaan ku yeedhan saa ku idhaahdo ima baan yaad garanaysaa inaan ku leeh haddaan saa ku idhaahdo tag inaan leeyahay baad garanaysaa haddaan sidan ku idhaahdo fadhiisa inaan leeyahay baad garanaysaa waxbuu faa'iideeyey حق الشرع يا حق اللغة يا كلام ونقون هيا لكن عند النحويين كلام ونقون هيا حاودي ذا هيا إنه النقض اللفظ لما هيا النطق باللسان وأنا عربك على هذا شرط وي وقضبك كوبات وي المركب وقضبك لباد وي المركب أو الاستركيبي من كلمتين فأكثر laba kalimo iyo wixii ka badan wixii la isu geeyay isaga taga ayaa la yiraahdaa kalaam haduuna laba kalimo gaadhin uu ka yiri hal kalimo haduu yahay kalaam la oran maayo muhammad ahmed khalid amar zayd wa mufradat kalaam lama oran hayo maxaa yeelay laba kalimo isu tagay meeshii ma jiraan al mufid waxna faa'iideyn haya oo qofka dhageysan hayana wax u faa'iideyn haya الطالب ناجح باطل أرضك وحاوية ونجح هذا هو كلام وي لفظ ويا هيا واد كو هدشي نطقي والله هيا مركب نويا هيا الطالب ومبتدوي وكلمه ناجح وحوية وخبرك ويان يدنا وكلمه لب كلمة اللي سجي مركب كي والله يا من كلمتين والله يا المفيد وإحنا فائدين هيو وقفك دغيسان هينا ومعنو فائدين هيو maxaad meesha ka faa'iideysatay markaan sidaa ku idhaa ardayga inuu baasay aad meesha ka faa'iideysatay ifaadadaasi waa shardi weeye haddii uusan hadalkii lafdi wuu yahay oo murakab wuu yahay laakiin mufiid muusan noqonin wax muuna faa'iideynin maalan in najaxa aalibu baatil ardaygu hadduu najaxo هذا من كلمتين فأكثر والله يا إن نجح
الطالب أنت وحرف وكلمة نجح وفعل ماضي وكلمة الطالب وكلمة أيضا وفاعل كويان صدح كلمة الله يا هذا لفظي وياهي مركب نوياهي لكن محل لهين المفيد فائدة دي لما هي محايا لي فائدة لغا الله يا وحاوي قفك كل جيسان هياي وإنه نجاها أتاجين النتيجة دنبه مركا ترى إن نجح الطالب أرضه هدون نجحه حظي ها ما حكى دنبه وين جوابتي قالوا سيعمل الحفلة سيفرح أنا سأفرح وين جوابتي اللي قالوا نتيجة ذا ستسويسا مركا أنت هذا جوابتها قارن لفظي وياهي مركب نوياهي لكن مفيد مع إن نجح الطالب هذا ترى هذا جوابتي ماذا قارن هذا الكاس وحمل فائدين لازم وين جوابتي اللي قالوا مفيد إنه ياهي ويا شرط بالوضع قصدنا وحكو فائدة قفكم مركو هذا كان أوكو هذا هيو أتدقي سنيسو وإنه يهي هذا الأقصدي أو إسقى قصد ولا كع وير هذا إسقى هالمانسن أو إسقى هذا الطالب جالس في الفصل وهر دابة وهر ريون هيا أما إسقى هالمانسن بوير أما واب السكران ووالين هاي ما أنت رضنا وحدون إسقى هذا هيا ولو كلمة دي لفظها كهذا لفظ قاسم مفيدها هذا مركبها هذا شروطي كلودن هلا بالوضع قصد هدان كفسر وضع قاس هدان قصد كي لهينين كلام عند النحويين كلام الأورن ماي حق الشرعي هي حق اللغة هي كلام ونغني لكن عند النحويين ضبط قاي السمايين كلام لغة مقعاب ماي هدي بالوضع عربي هدي اللغة فسرنا وضع قاس وإنه لفظ عربي هدي اللي يرهدنا وحي اللغة هي كله لفظها الله يوم مركبها هذا مفيدها هذا مرها دون عربي أو صناهين وحدوني بها هذا كلام لغو مقعاي ما هي عند النحويين مركب تعريف أوجه الريويان كلام وحلا يرهدو كدبنا وحنو شيء دونا أقسام تيسو أنت عين نقونيسو بداية ديس مركب كلام كاس أيو دورتي إنه مصنفه كتاب كيس إنه قبل لوضو كدبنا وحويان مركو أقسام تيس أو إنه شيء علامات كوسيان أو إنه راعيه إعرابك وحي الأورنجري أيو بابكي مهم كهاي لو كلا حديدة هي أتكو جرنيسي وحن العرابية وحن العرابية وحي مبني أي وحن مبني أهين أتكو كلا جرنيسي كدب كاسو قلي دونا مركو وحويان تعريف كاس الكديل يراه كلامكم محوية هي ضبط جيسو محوية هي تعريف جيسو محوية هي اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هذا الكي هو اللفظ كدواق ويه اللفظ المركب أو الاستركيبية أو الإسوجية من كلمتين فأكثر لما كلمة يوحك بدن بالإسوجية المفيد أو فائدين هي أو قفك جيسنا وحو فائدين هي بالوضع قصد أو قصتين كفائدين هي أو قفكم مركو هذا الكوكا هذا يوينه ولا كع وير هذا يسقو أو قصته أو سن هالمان كو إيمان هردكو إيمان هذه وضعك قصد لو فسره هذه عربي لو فسرنا وحويان وحي عن عربي أهين كلام لو مقعاي ماهي مركا تعريف ككلامكو وحويان وأفر تعلب دي ويان أفر تعلب دي وين أتقبتها والهدي لو هذا ما هو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الله سبحانه وتعالى عندي واحد سؤال أقطع بالوضع هذه قصد أن كفسر وضع قاس معاني هيسو